مقدشو 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الكسور دوادا muuqaalkeena maanta waxaan mar kale dul istaagi doonaa taxanaha taariikhda magaalada Muqdisho qaybtii labaad. qaybtii koowaad waxa inoo joogtay Ibn Battuta oo Muqdisho yimid sanadkii 1331 Muqdishona ku tilmaamay magaalo aad u camiran, ganacsi xoog badan oo ka socdo, sidoo kale dadka Muqdisho jooga ay yihiin dad ku wanaagsan martiqaadka. intaan qaybta labaad u gudgelin ka hor waxaanu mahadcelinayaa qoraaga Soomaaliyeed taariikhyahan Professor Khalid Muallim. Ibn Battuta waxa uu sheegay markii uu tagay magaalada Muqdisho inuu xukumayay nin la yiraahdo Abu Bakr bin Sayyid Umar. waxa uu lahaa wasiiro, la taliyaal, sharci yaqaano iyo qoysas boqortooyo. waxa uu boqorkaasi ku hadli jiray luqadda barbarka, magacii loo yaqiinay Soomaalida qarnigii koowaad ilaa ay qarnigii 13aad. sidoo kale Ibn Battuta waxa uu sheegay in loo sameeyay martiqaad aad u wanaagsan oo uu asiga meel kale ku arkin. waxyaalihii lagu martiqaaday waxaa ka mid ahaa hilib, caano, kalluun, khudaar noocyadooda kala duwan. qofna xeerada ma bilaabi karo inta uu boqorka maqan yahay. arrinkan martiqaadka wanaagsan waxaa xiray Ibn Khaldun oo ahaa taariikhyahan iyo cilmi bulshiyahan u dhashay Andalus, laakiin asal ahaan ka soo jeeda Yemen, Hadrulmawt. sidoo kale Vasco da Gama oo ahaa badmareen reer Portugiis ah, aadna loo wada yaqaan, ayaa soo maray Muqdisho qarnigii 15aad. waxa uu markaasi ku sifeeyey Muqdisho inay ahayd magaalo weyn oo ay ka dhisan yihiin guryo dabaqyo ah iyo masaajidyo minaarado leh. sidoo kale Duarte Barbosa oo ahaa Portugiis ayaa sheegay maraakiib ka timid xeebaha Aasiya ay ku soo xiran jireen xeebaha magaalada Muqdisho. Muqdisho xilligaa waxaa laga dhoofin jiray dahabka, foolka maroodiga, fardaha, shabeelka iyo haram cadka. sidoo kale maryo ay xirtaan dumarka oo aad loogu jeclaa wadamada Masar iyo Suuriya. qarnigii 16aad Leo Africanus oo ahaa diblomaasi reer Andalus ah Spain ayaa qoray dadka degan magaalada Muqdisho ee caasimadda Ajuuraan iyo kuwa deganaa magaalada Saylac oo ay ahayd caasimadda saldanadda Adal ay isku dad ahaayeen. muuqaal ahaan waxay ahaayeen dad madow oo maariin ah oo dhalaalaya. waxay isticmaali jireen hub dhaqameed sida seefo, toorey, faas, qaanso iyo leeb. waxa ayna gacan saar la lahaayeen dowladdii Cusmaaniyiinta. isla qarnigii 16aad Portugiiska ayaa isku dayay inuu qabsado magaalada Muqdisho si dowladda Cusmaaniyiinta uu ugu jaro marinada ay kaga baahan tahay bariga Afrika. laakiin si arrintaasi waxaa ka hor istaagay ciidamadii boqortooyadii Ajuuraan oo taageero ka helayay dowladdii Cusmaaniyiinta. waxaana halkaasi ka dhacay dagaal loo yaqaanay dagaalkii Banaadir Battle sanadkii 1524. Portugiiska dagaalkaasi waxaa hogaaminayay nin la oran jiray Captain Zavola. Portugiiska inkasta oo aysan magaalada Muqdisho qabsan, haddana waxa ay u geysteen burbur aad u weyn oo keentay inay wiiqdo awoodda dowladda. intaan ha inoo joogto qaybtii labaad taariikhdii taxanaha ahayd ee Muqdisho. waxaa qalinka u qaatay Ustaad Khalid Muallim. intaan qaybtii saddexaad ku kulmi doono nabadgelyo. haddii aad channelkan ku cusub tahay fadlan subscribe sar.